bandhig faneedka lagu maamuusayay nabadda iyo horumarka deegaanka isla markaana ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada ee Somali Song Youth oo ah urur dhalinyaro oo midoobay kuwaas oo ka shaqeeya horumarinta fanka deegaanka waxaa maanta markii ugu horeysay bandhig faneed aad u heer sareeya ay ku soo bandhigeen hotel Ruuja ee magaalada Cabudwaaq iyadoona bandhig faneedkaas ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Cabudwaaq goobtii lagu qabanaya bandhig faneedka waxa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada oo kamid yahay madaxa arrimaha bulshada ee degmada Cabudwaaq Khaliif Cabdisamed Cali asagoo goobta ka hadlayna waxa uu sheegay in wax lagu farxo ay tahay in xilligan deegaanka ay dhalinyaradu ka shaqeyso horumarinta fanka waxa meeshan ka dhacay waxa aad u qurux badan bay ahaayeen wax la taageeray ahaayeen wax xaqiiqatan wax laga qabtay ahaayeen waxa maad aad u cilmiya kooxdii soo abaabushay ka soo shaqeysay soo habaysay aad aan ugu ambalyeeraya boqolkiiba boqol xaqiiqatan kulli hadda waxaa la geenayaa gudoomiyaha iyo kooxdaba waa laga baxay madowga dhexdeena awal lama jirin wixii awood aan heli karno annaga wixii horumar noo ah marka qofkii hadda dhegaysanaya raadiyo meesha u dambaysan yani qof haddani aad ku dhegaysanaya qiiray lahayd sharaf bay lahayd yani wax dhagaystay ahayd taas mid lamida waxa joojin kara maaha waxaa halkaasi lagu soo bandhigay heeso isugu jira wadane dhaantooy iyo weliba riwaayado kala gadisan oo lagu maamuusayo doorka horumarka ee deegaanka ka jira kuwaasoo ay soo qaban qaabiyeen ururka SSY يوسف عبد الشير تلفزيون عالمي جاي الرويال مقالة عابد واق